saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda caalamka. barnaamijkan dhacdooyin kala duwan oo ka taagan caalamka ayaanu kusoo qaadan doonaa caawa. waxaana ka mid ah dowladaha ingiriiska, faransiiska iyo jarmalka ayaa ciidamo doonaya in ay u diraan wadanka Ukraine. ciidamadaasi maxay ka sameynayaan wadanka Ukraine? Russia sidee bay u aragtaa Trump iyo dowladdiisa Mareykanka? waxa ay ciidamadaasi ay ka yiraahdeen ayaanu barnaamijkan ku eegi doonaa. qaybaha kale barnaamijka waxa aynu ku soo qaadan doonaa ra'iisul wasaaraha wadanka Lubnaan oo mar kale eedeyn weyn u jeediyay hogaanka kooxda wax iska caabinta ee wadankaasi. dagaal sokeeye ayaa qarka loo saaran yahay. kooxda hanjabaad weyn oo culus ayay u dirtay dowladda iyo ra'iisul wasaaraha, taas oo qayb ka ah markii Mareykanka uu miiska golaha wasiirada ee wadankaasi uu soo saaray in kooxdan hubka laga dhigo, dowladana way meelmarisay. arrintaasi dagaal qaraar buu wadanka qarka u saaray. falanqeyn ayaanu ku samayn doonaa. Iiraan oo wafdigii ay usoo dirtay wadanka Lubnaanna labada dhinacba la kulmay, labaduba waxay kala kulmeen iyana waynu eegi doonaa. qaybaha kale ee barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan oo ku dhawaaqay in wadankiisa uu sameyn doono taliska gantaalada ee ciidanka wadanka Pakistan. taliskan oo Soomaalidu qaar ay u taqaano taliska jugta culus. waanu falanqayn doonaa waxa ay taliskan ay qabanayaan, sababta loo sameynayo, waxa hadda ku soo beegay dagaalka India iyo Pakistan haddii uu xiriir u leeyahay Mareykanka, Israa'iil iyo dalalka bariga dhexe. iyaguna arrintaasi waxa ay dabcan ay ka yiraahdeen. qaybaha kale ee barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin. ilaa iyo hadda warbaahintu waxa ay qorayso jabka ciidamada militariga ee maamulka si Israa'iil gaaray kadib weeraro gaadma ahaa iyo duqeymo madaafiic hoobiyaal ah ka dhacay halkaasi. barnaamijka ayaana ku eegi doonaa. qaramada midoobay warbixin ay soo saartayna waanu fiirin doonaa si kooban oo ay kaga hadlayso guud ahaan gargaarkii magaaladaasi galay iyo intan iyo bishii May 1760 qof oo dad ah oo gargaar iyo raashin meelaha laga bixinayo taagan in diyaaradaha militariga ee maamulkaasi ay duqeeyeen. bal haddii aad ku cusub tahay janaalkan kusoo dhawow oo subscribe inoo saar. waxaanu falanqeyn ku sameynaa dhacdooyinka waaweyn ee ka taagan caalamka. waxaanu barnaamijkeena ku bilaabaynaa dalalka waaweyn ee reer Yurub sida Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska oo doonaya in ciidamo dhawaan ay u diraan wadanka Ukraine si ay dabcan wadankaasi u joogaan. waxay u joogaan iyo waxaanu gudagalaynaa ka hadalkooda, waxay sameynayaan iyo sida dhinacyadu ay uga hadlayaan. bal aynu ku hormarno wadanka Britain iyo UK. ciidamo British ah ayaa waxaa la qoondeeyay in loo diri doono wadanka Ukraine si ay dabcan ay uga qayb qaataan nabadda wadanka Ukraine. waa haddii hogaamiyaasha Russia iyo sidoo kale Mareykanka ay wax noocun heshiis xabad joojin ah ay gaaraan, walow kulankii ugu horreeyay ee xalay la galay wax natiijo uu ka soo bixi waayay, kulamo kalena ay u balansan yihiin. boqortooyada midowday ee Ingiriiska oo ay weheliyaan Faransiiska iyo Jarmalka ayaa hormuud waxay ka yihiin isbahaysi reer galbeed ah oo muujinaya rabitaan ku aadan in 100,000 oo askari ay u daabulaan wadanka Ukraine, kuwaas oo noqon doona ciidamo nabad ilaalin ah oo dabcan wadanka Ukraine degi doona kana hortagi doona haddii heshiis xabad joojin ah la gaaro in dabcan nabadda ay ilaaliyaan oo ay halkaasi ciidamo nabad ilaalin ah kuwa Soomaaliya hadda jooga oo kaleba ay halkaasi ay u tagaan. waxaa hadlay oo arintan falanqeyn ka bixiyay xogayaha difaaca ee wadanka Ingiriiska. waxa uu yiri ciidamo British ayaa difaaci doona heshiis xabad joojin haddii Ukraine laga gaaro. waxay saldhigan doonaan wadankaasi Ukraine, gaar ahaan gobolada hadda dagaalada ay ka jiraan. dhexdhexaad bay noqon doonaan. Russiana dabcan lama jiri doonaan, Ukraine lama jiri doonaan. waxa uu yiri laakiin haddii ay dhacdo in Russia ay weeraraan ciidamadan Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska ee la geyn doono wadankaasi Ukraine, annaguna dib ayaanu u dagaalami doonaa oo waanu isdifaaci doonaa. maxaa yeelay wuxuu yiri xogayaha difaaca annagu kuma kalsoonin wadankan Russia. haddaba ra'iisul wasaaraha wadankaasi Ingiriiska Sir Keir Starmer ayaa bishii Febraayo ee sanadkan waxa uu ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin in ciidamo British ah ay geeyaan wadanka Ukraine si nabadda ay u ilaaliyaan. haddaba su-aasha ugu weyn ee la isweydiinayo marka waxay tahay qof walba qaba maxay noqon karaan doorka ciidamadan UK ay u diri doonto halkaasi. dabcan dowladdu waxay leedahay nabad ilaalin bay noqon doonaan, laakiin Russia miyuu doonayaa ciidamo reer galbeed ah oo kale in la keeno dalka Ukraine? waa tii markii horeba uu ka dagaalamayay in NATO aysan cagta soo saari karin wadanka Ukraine. haddii ay taa dhacdana waa sababtii uu dagaalka u galay.
Russia ilaa hadda arrintaasi kama hadlin laakiin warkan mar kale buu soo shacbaxay oo banaanka yimid markii Mr Haley dabcan uu waraysi BBC Radio 4 uu siiyey maalintii Jimcaha ee shalay kaas oo kaga hadlayay bal kulankii xalay dhexmaray Trump iyo sidoo kale Putin iyo wuxuu kaga hadlay dabcan doorka Ingiriiska sida ay u aragto in kulankaasi aan laga qayb gelin waxyaalahaas baa su'aalo la weydiinay marka wuxuu soo hadal qaaday in saddexdaasi wadan oo Ingiriiska ka mid tahay ay rabaan inay ciidamo u diraan wadanka Ukraine nabad ilaalin ahaan ay u joogaan nabadana ay halka ay ilaaliyaan waa hadii Ukraine iyo Russia heshiis ay gaaraan loona baahdo ciidamo saddexaad ama ciidamo wadamo saddexaad inay yimaadaan oo nabadda ilaaliyaan dabcan Russia arintaasi sinaba uma ogolaan karo ay falanqayaashu ay leeyihiin Mareykankana ilaa hadda kama uusan hadlin laakiin Trump wuxuu leeyahay waxaan xoog isugu geenaynaa sidii heshiis xabad joojin ah wadanka Ukraine looga gaari lahaa bal markan aynu u guda galno wadanka Lubnaan oo qarka u saaran dagaal sokeeye in uu ka dhex qarxo kooxda wax iska caabinta ee reer Lubnaan iyo dawladda daciifka ah ee wadankaasi Lubnaan ra'iisul wasaaraha wadankaasi Lubnaan Nawaf Salma ayaa weerar waxa uu ku qaaday hogaamiyaha kooxda wax iska caabinta ee reer Lubnaan Naim Qasim waxa uu ku sheegay hadii kooxdiisu ay dhigi weydo hubka in dagaal xoogan uu wadanka uu ka dhex qarxi doono ma jiro koox aan ahayn dawladda oo awood u yeelan karta inay hub ku dhex sidato wadankaasi qoraal uu bartiisa Twitterka uu soo dhigay ayuu ku sheegay ra'iisul wasaaraha wadankaasi Lubnaan Nawaf Salman tani waa dabcan wax qarka u saaraya dagaal wadajir ah oo wadankan uu la geli doono kooxdaasi reer Lubnaan ee Hezbollah la yiraahdo ayuu ra'iisul wasaaraha yiri isla markiiba waxa soo jawaabay hogaamiyaha kooxdan Naim Qasim waxa uu yiri annagu ma aqoonsanin gabi ahaanba dawladdan wadanka Lubnaan ee Mareykanka iyo Israa'iil ka dambaysa hadii jeer wixii ay soo dhiibaana wadankan ka dhaqan geliya hubka ma dhigayno waxaanu diyaar u nahay cid kasta oo isku dayda inay xaggeena soo aado oo hubka ay naga dhigto sida Israa'iil aynu ula dagaalamayno ayaanu ula dagaalami doonaa xitaa hadii Mareykanka uu ahaado oo meesha u yimaado ayuu hogaamiyahaasi u yiri shalay iyo duraad waxaa magaalada Beirut ee caasimadda wadanka Lubnaan joogay oo la kulmay ra'iisul wasaare Nawaf Salama iyo sidoo kale hogaamiyahan kooxda wax iska caabinta ee Hezbollah Naim Qasim waxa la kulmay Ali Larjani gacanta midig ee hogaamiyaha ruuxiga ah ee wadanka Iran labaduba wuxuu u sheegay dabcan in ay kooxda wuxuu u sheegay in dabcan Iran wali ay taageersan tahay ra'iisul wasaaraha iyo dawladdiisuna waxa uu sheegay inay qalad weyn oo taariikhi ah ay galayaan hadii go'aanka Mareykanka ay fuliyaan oo ah in hubka ay ka dhigaan kooxdu waxa lagu qiyaasaa in 100,000 wax ku dhow oo askari ay haystaan oo tababaran oo dabcan dhaqaale fiican ay siiyaan hub fiican way haystaan marka dawladdu iskama dhicin karto oo falanqayaashu waxay leeyihiin waxaba suuragal ah arintan darteed wadanka Lubnaan in dagaal sokeeye uu faraha uu la soo galo marka maanta waxa cusbaa in la soo hanjabay oo ra'iisul wasaaraha uu hanjabay sidoo kalena hogaamiyaha kooxda wax iska caabinta ee Lubnaan isagana uu hanjabaad u diray marka Israa'iil iyo Mareykanka banaanka ka fiirsanayaan hanjabadahaasi iyo dagaalkan wadankan uu qarka u saaran yahay bal markan aynu guda galno inta aanu Israa'iil aadin wadanka Pakistan oo markan sameynaysa taliska ciidanka jugta culus ee wadankaasi Pakistan uu yeelan doono ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan ayaa ku dhawaaqay in ciidamo cusub oo ka tirsan militariga oo loo yaqaano jugta culus ama taliska gantaalada in dhawaan la abuuri doono oo la asaasi doono sida muuqata talaabadan waxay qayb ka tahay in wadankan Pakistan uu ka hortago talaabooyinka India iyo dagaalada soo socda ra'iisul wasaaraha wadankaasi Shahbaz Sharif ayaa ku dhawaaqay in ciidamadan gantaalada ciidanka dableyda arbacadii uu sheegay in dabcan la sameyn doono isagoo Islamabad ku sugan oo ka qayb galaya munaasabad ayuuna arintaasi ku dhawaaqay marqura ayaa India iyo dalalkii gobolka Israa'iil Mareykanka iyo kulli ay yiraahdeen maxay yihiin ciidamadan maxay qaban doonaan bal aynu si kooban u eegno ciidamadan waxa ay yihiin ciidamo ka tirsanaan doona militariga waxa loo yaqaanaa Rocket Force loo yaqaana waxa ay noqon doonaan branch ama laan ka tirsan ciidamada militariga shaqadooduna waxa weeye jugta culus iyo madaafiicda sidoo kale ciidamadan waxay lahaan doonaan structure-kooda gaarka bay lahaan doonaan waxay ka madax banaanaan doonaan ciidamada kale ee militariga iyo garbaha ciidamada ee wadankaasi Pakistan uu leeyahay ciidamadan shaqadooda waxay noqon doontaa inay horumariyaan ama talisku wuxuu noqon doonaa shaqadiisu in uu horumariyo kormeero madaafiicda iyo sistemada loo baahan yahay inuu dabcan uu keeno ama
uu soo ictiraaqo iyo weliba inuu dabcan uu keeno waxyaalaha la xiriira horumarinta ciidamadaasi laakiin ciidamadan kuma jiraan inay maamulaan hubka nuclearka ee wadankaasi Pakistan haddaba maxay Pakistan u sameynaysaa ciidankan dad badan ayaa isweydiinaya arinta ugu weyn ee ugu horeysa ee Pakistan ay u sameynayso ciidamadan joogta culus waxa weeye inay ka hortagto misailka ama gantaalada awoodda gantaalada ee wadanka India ee sii kordhaya sanadka ka dambaysa India ayaa waxay horumarinaysaa oo ay dabcan sameysanaysaa gantaalada nooca ballistiga cruise misailka iyo lidka diyaaradaha oo ay aad u horumarinayso marka Pakistan waxay arkaysaa hanjabaad iyo cabsi weyn inay uga soo imaanayso dhinacan iyo India marka iyana waxay hadda horumarinaysaa ciidamadeeda dhinaca madaafiicda iyo taliskaasi maxay tahay arinta kale ee ku qasbaysa Pakistan inay hadda horumariso oo ay sameyso taliskaasi gaarka ah arinta ugu weyn waxa weeye in India wali ay la xiriirto maadaama labada wadan ay hub nuclear haystaan dabcan markasta waxay ka fogaadaan oo caalamkan uu ku booriyaa inaysan hubkooda nuclearka isticmaalin marka India maadaama ay haysato noocyadaasi kala duwan ee madaafiicda ama misailka sida ballistic misailka cruise misailka iyo air defense systemkaas ay haysato marka Pakistan iyana waxay doonaysaa bal arintaas inay iska hormariso dhinacaasi oo ay haddii caalamku uu yiraahdo nuclear aan la isticmaalin si ay bedelka arintaasi ay u noqoto arinta saddexaad ee ku qasbaysa in Pakistan ay sameyso joogtaasi culus taliskaasi qaabilsan waxa weeye in Pakistan ay 78 sano guuridii ka soo wareegatay xuriyadeeda dhawaan ay doonayso inay ku soo bandhigto ciidamadan cusub ee kala duwan ee wadankan uu lahaan doono bal aynu fiirino caqabadaha sameynta taliskan ee madaafiicda ee wadankan waxa ka dhalan kara ama caqabada ah oo dabcan ay wajihi karto waxa kamid ah dabcan dhinaca dhaqaalaha iyo resourciga ay wadankan Pakistan ay u hayn karto sidoo kale in Mareykanka iyo quwadaha adduunka ay cadaadis saarayaan wadanka Pakistan inay bal qiimeyn ku sameyso arrimaha ku saabsan hubkeeda nuclearka oo waxa jira Israa'iil iyo Mareykanka iyo dalal reer Yuruba oo aan wali u ogolayn Pakistan inay hubkaas haysato iyo waliba in Pakistan ay laftirkeeda wajahayso dagaalo kale oo Israa'iil ay suuragal tahay in ay dhawaan uga yimaadaan oo wadankeeda lagu beegsan karo maxay yihiin marka fursadaha u furan ee hadii la sameeyo ciidankan ama taliskan wadankan Pakistan uu haysan karo dabcan fursadda ugu weyn waxa weeye in wadanka uu haysto isku filnaan ku filan oo ku saabsan dhinac kasta oo ciidamadiisa ah oo gaar ahaan in India hadii dagaal kale uu yimaado oo caalamkan uu yiraahdo yaana la isticmaalin hubka nuclearka in dabcan Pakistan ay haysan karto hub ku filan midka ay haystaan ama u dhigma midka ay haystaan India marka fursadaasina waa ay u furan tahay baa yiri marka India iyo Pakistan mar walbaba waxay ku jiraan diyaar garow aad u weyn oo dagaalkooda ah ayna fiirino xulafada marka labada dhinacba hadda ay kala haystaan Turkiga Iran iyo sidoo kale Masar iyo dawladaha waaweyn ee ku yaala caalamka ayaa waxa ay taageersan yihiin wadanka Pakistan halka Indiana dabcan ay haysato reer Yurub sida Faransiiska iyo Ingiriiska iyo sidoo kale Russia oo dhinaca marka labada wadan in dagaalkooda uu dib u qarxo mar walba lama yareysan karo oo waa ay dhici karaan ugu dambeyntii gawaarida militariga ee maamulka duulaanka ku ah magaalada Gaza ayaa burbur xoogan waxa uu ka soo gaaray qaraxyo dhulka lagu aasay iyo weeraro gaadma ahaa oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan magaalada Khan Yunis iyo koonfurta magaalada Gaza warbixinada deegaanka ka imaanaya waxay sheegayeen in weeraradaasi ay ahaayeen kuwa gaadma ah isla markaana qasaaro uu ka soo gaaray qaar kamid ah ciidamada laakiin lama xaqiijinin haddii qasaarahaasi uu yahay qasaaro nafeed iyo mid dhaawaceed intaba laakiin burburka gawaarida ayaa muuqanayay oo dadka deegaanka ay soo warinayeen taa bedelkeeda ciidamada militariga ee maamulka Israa'iil ayaa weeraro rogaal celin ah oo ay sameeyeen waxay ku dileen dadyo fara badan oo ahaa kuwa meel gargaar laga bixiyo ku sugnaa qaramada midoobay warbixin ay soo saartay maanta waxay ku sheegtay in 760 qof oo dad reer Gaza ah oo gargaar raadinayay tan iyo bishii May in ciidamada militariga ee maamulkaasi dileen taasoo sii kordhinaysa dambiyada dagaalka ee magaaladaasi ka dhacaya iyo in maxkamadaha caalamiga ah ay baadigoobayaan hadda hogaamiyaha ra'iisul wasaaraha ka ah maamulkaasi Israa'iil iyo xubnaha golahiisa wasiirada ee dadka ku dhameynaya magaaladaasi marka jab weyn ayaa ka soo gaaray saacadii la soo dhaafay mid kamid ah diyaaradahooduna way soo dhacday oo sawirada iyo burburka diyaaradaasi ayaa dadka deegaanka ay arkeen laakiin militarigu weli kamaanay warbixinin macluumaadkan ayaa ugu dambeeyay kuwa aan ugu talagalnay inaanu barnaamijkan caawa ku soo kordhino kuwan iyo kuwa kale ayaa saacadda ka dambeysa soo kordhaya haddii aad doonaysid inay ku dhaafin fadlan subscribe saar oo la soco channelkan aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin